bounds. kusoo dhawaada dhammaantiin daawadayaal channelkeennii Reeb Media. marka hore subscribe dheh channelka, mar labaadna la soco qiso xanuun badan oo aan idiin soo gudbinayno maanta, taasi oo ka hadlaysa gabadh u dhalatay dalka Ruushka. waxay ku bilaabmaysaa qisadu sida tan. waa qiso xanuun badan kuna saabsan gabar u dhalatay waddanka Ruushka, haysatana diinta Nasaarada, waxayna ka dhalatay qoys aad ugu adag diintooda. waxay ahayd gabadh dhowrsoon inkastoo aynan haysan diinta Islaamka. waxaa dhacday inuu nin waddankaas joogay dhaho, adiga iyo gabadhaas kale aada waddanka Khaliijka Carabta kana soo gada qalabka korontada una soo iibgeeya waddanka Ruushka. waxaan bilownay inaan gudagalno arrintaas, aanan u baxno waddankaas. waan aadnay waddankii, laakiin ma aysan noqon arrintu sidaan moodaynay oo uuna khiyaameeyey ninkii. wuxuuna doonayay inaan ka ganacsano jidhkayaga, hase yeeshee waan ka diiday. wuxuuna yidhi waddankan ma taqaanid, dharkaygii iyo baasaboorkaygiina uu qariyey. wuxuuna iigu sii daray intaas, waxaad galaysaa nolol ciqaab ah. wuxuu ii dejiyey guri ciriiri ah, waxa aanan kala kulmay dhibaato aad u daran. maalin ayaan guriga baadhay, waxaanan helay baasaboorkaygii, waanan ka baxsaday gurigii anigoon aqoon meel aan u socdo ama ku hoydo. waxaan arkay wiil ay la socdaan 2 qof oo dumar ah. waan farxay, waxaanan kula hadlay afka Ruushka. wuxuuna ii sheegay inuusan fahmayn afkaas. waxaan idhi ma taqaan luqadda Ingiriishka? wuxuu igu yidhi haa. aad ayaan u farxay, waanan u sheegay qisadaydii. waxaan ka codsaday inuu igeeyo guri muddo 3 beri ah si aan ugu dhammaysto hawlahayga. wuu ii aamini waayey oo wuxuu u qaatay inaan khiyaanayo oon shirqool u dhigayo. wuxuuna igu yidhi hooyaday iyo walaashay ayaan la tashanayaa. si kastaba ha ahaatee wuu ii kaxeeyey. wiilka waxaa lagu magacaabaa Khaalid. Khaalid wuxuu yidhi waxay bilowday gabadhii inay la xidhiidho ciddeeda, laakiin lagama jawaabin tilkooda maxaa yeelay khadka ayaa aad u xumaa. kamaysa daalayn ilaa ay ku celcelinaysay maahe. waxaan dabagalnay cidda ay tahay gabadhan, aniga iyo hooyaday. waxaanan ogaanay inay tahay gabadh haysata diinta Nasaarada oo aanay ahayn Muslim. waxaanan kala hadalnay diinta Islaamka, laakiin si cad oo xoogan ayay u diiday, mana ay rabin in lagala hadlo arrin diimeed. waxaan aaday meel maktabad ah, waxaanan u soo qaaday kitaab ku qoran afka Ruushka kana hadlaya diinta Islaamka. way akhrisatay, wayna islaamtay, aad ayayna u wanaagsanaatay islaamnimadeedii. waxay la fadhiisan jirtay gabdhaha saalixaadka. Khaalid wuu guursaday gabadhii, wuxuuna yidhi maalin ayaan suuqaysu raacnay, waxayna aragtay gabadh xijaaban, niqaabna xiran. waxay i weydiisay maxaa gabadhan helay, ma wejiga ayay wax kaga dhaceen oo ay qarinaysaa? waxaan ugu jawaabay maya, ee waa xijaab Allah u amray inay xidhaan gabdhaha muslimaadka ah. waxayna i tidhi waa runtaa. waxaanan idhi maxaad ku ogaatay? waxay tidhi igee meelaha lagu gado xijaabka Allah amray inaan xidhanno, kaas ayaan rabaa. mana doonayo wejigayga inuu arko qof aan adiga ahayn sawjkaygiyow, kamana noqonayo ilaa anoo wata maahe. waxaan idhi iska daa oo wado ka hadaayo hooyaday iyo walaashay ay wataan. wayse iga diiday, waxayna codsatay inaan geeyo meelaha lagu iibiyo, wayna iibsatay. gurigii ayay aadeen, waxayna tiri gabadhii waxaan arkay inuu baasaboorkaygii dhici rabo oo ay adkaanayso inaan mar labaad u safro waddankaygii Ruushka. waana soo cusboonaysiisanayaa, ani iyo ninkaygii waxaan u safarnay waddanka Ruushka. maxaa xigi doona? la soco qaybta dambe.